bananvanka.com. maanta waa maalin wanaagsan Eid Mubarak ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meel kasta joogaan anoo magacayga Daawud Burey Cabdi ama Daawud Burey Abi oo jooga xarunta Norway magaalada Oslo waxaan salaamayaa muslimiinta meel kasta joogaan salaanta kadib waxaan rabaa inaan barnaamijkan ka faa'iideysto dhibaato ugu dhacday bishii January anigoo lix caruur u joogtay magaaladan Oslo Norway oo qoladan Bananvanka soo weerareen oo xabsi dhigeen 3 usbuuc xireen kabacdi wax dambina igu waayeen dambiga kabacdi caruurtii dumcayna qaataan laakiin allihii weynaa ka badbaadi marka caruurta mid kamid oo 15 sano jiro ay iga qaateen waxay iga qaateen shalay oo taariikhda ahayd 16 bisha 7 2015 ay iga qaateen wiil 15 sano jiro bila shuruud la'aan iska ka xisteen oo ilaa hadda ay la maqan yihiin ma aqaan wax damacsan yihiin marka aan wacana waxay dhaheen anaga ku soo wicin ilaa hadda ima soo wicin marka dhibaatada ugu weyn oo Soomaalida ku haysta Norway waxa xagga caruurta la iska qaata wax dambi la'aan ayagoon lahayn dadkii dawlad xooggan oo isku xirneen dadkii oo kala daadsan marka Norway dhibaatadaas ka jirta marka waxaan jeclaanahay ummadda muslimiinta meel kasta jooga inay soo duceeyaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haysta Norway caruurtooda la isku gurto maalin kasto bila shuruud la'aan oo iska maagayo ama loogu tagay iskuulka ama baanhagaha ama meel kasto Daawud Burey waxaa noo sheegtay in ay ku soo weerareen kuwa caruurta qaata ee loo yaqaan Bananvanka magaca marka aan isticmaalno luqadda Norwegian-ka maxay tahay sababta kugu soo weerareen sababta ugu soo weerareen cunug aan dhalay ayaa iskoolka intuu tagaa wuxuu yiri abiha idili wax mana dilin waa beentiis cunug iska caroodo waa laba cunug waxaan u gaday mobile asagana mobilka wuxuu roo markii sidoo ku caroodo arintii markuu sheegay booliis ayaa guriga yimid 3 usbuuc ay xireen wax dambi ugu waayeen soo deeyeen waxay damay caruurta inay qaataan caruurta kale waxay dhaheen aabahan weligaa inama dilin waa fiican yahay caruurta kale la handaday oo wax walba lagu sameeyay heer waxa la gaaray in la dalaalo oo la yiraahdo muxuu ahay walaalkiin difoos u noqdo meel fiican nolol meeshan nolol ka fiican aan laga siino aniga geena ama guri inta ka fiican aan laga geena marka caruurta la qaatay waxaa noo sheegtay inay 5 yihiin caruurta dhamaan caruurtoodu waa 6 laakiin dhamaantooda waa 6 marka midka ugu yar waa imisa jir 5 jir ayaa ugu yar 18 jir aan u weyn kan dacweynu waa 15 jir waa midka hadda la qaatay kaasna shalay oo bisha ay ahayd 16 bisha 7 2015 shalay qaateen marka ma garan doono meesha uu ku dambeyn doono ilaa hadda xagee ka heleen ay ka qaateen waxay ka heleen meel samar yob meel uu ka shaqeynay ka xisteen meesha uu gurigu maalin meesha ugu toonay ka xisteen asagana kuma soo wicin meesha uu joogo ilaa hadda asagana ma soo wicin ayaga waxay wicin gabarna adeer ay gabadha ay sheegtay markaas ayaga ayagana waxay dhaheen bari oo jimco bisha tahay 17 ayaan ku soo wicinaa ilaa haddana waxay soo wicin malaha waxa kale ku weydiin lahaa adigoo ma tahay qof shaqeeyo mise xataa dadka qof shaqeynahay 4 sano iyo baran shaqeynaa shaqada ay soo dhamaatay shaqo kala codsaday meel iskuul ah hadda aada laakiin kuma xirna ilma qaadashada qofka doo shaqeeya hadii waa isku mid Norway ka shaqeeyo iyo kan ashaqeyn iyo hooyada kaleed iyo ninkii naagta isqabo ninkii naagta isqabo ugu nacban yihiin ma jecla nin naag isqabo isku xiran waaya marka isku xirna shaqeeyo waxaas marka waa isku mid Norway nin iyo naag wasku mid hadii ku soo maagan inuu ilaahay ka badbaadi maana cid kale ka celin hadda maxaa ku qorshaysan ma avocado qabsanaysa maxaa sameeyay avocado waa ii dooday hadda ilaa hadda wax oo fiican oo natiijo ma gurigiina waa laga madnoocay waxay dhaheen ma tagi kartid guriga laga degnay caruurta waa laga soo yiri waxaan deganahay xaafad kale deganaa ayagana xaafad kale degan yihiin 3 maxkamadaha maray maxkamadii saddexda waxa lagu dhaay caruurta ku soo boqon kartaa laakiin kii ku dacway ma soo boqon karo guriga ma tagi kartid marka waxa isaan wax la yiraahdo Norwegian basuuq furbud macnaha hadda waxa leedahay aniga guriga xitaa aan familka xaaska iyo caruurta ii joogtay sida la xir kadib maba ku laaban oo la ima ogolo 15 bisha Janaayo la xir 2015 ilaa hadda guriga kuma laaban waxa la yiraahdo mamnuuc ka tahay marka avocado hadaan weydin wuxuu yiriniyo ilaa iyo 18 sano ku gaar guriga kuma laabanaysto wal 3 bilood oo qabteen lagu siinaa 3 bilood markay ka dhamaatay 3 kale 15 bisha Janaayo 2015 ayaa cunqabataan lii saaray ilaa 5 May markay dhamaatay 6 May ilaa 6 Agoosto hadana lii saaray 6 Agoosto wixii ka dambeeyay ma garan karo inuu qabateen si socon doono ilaa kale markaan Soomaalida Norway waxaan kula talin lahaa inay ay foojignaadaan maadaama dad miskiin oo iska jilacsan ay yihiin dawlad u doodayso xooggan ay lahayn oo safaarada xooggan ay lahayn oo dadkii dawladda dhexe markay dhexda ka baxday kala daateen ilaahu maqan insha Allah alxamdulillah laakiin
Norway waxaa jiro dad badan oo carruurta laga qaatay oo isla hadlay qaar waashay qaar aan maskaxdooda joogin qaar waddanka iskaga noqday qaar Yurubta kale iska aaday waxaan nimanayna gabale marka dhabkaas iska jiro marka inta badan waxaa maqalnaa familada carruurta laga qaato waa hooyo kaligeed marka idinka waxaa tihiin family aniga u malayn jirin hooyo kaligeed oo carruurta laga qaato wax walba ama hooyada kaligeed waa ugu daran tahay bataas hooyadii aabbaha isqabaata waa ka qaataan waxaan macna lehna iga qaataan waa lagu marsoona cunuga baanaagaha tagay ama iskuulkii waxaa laga guriga ka waran dhib maa ka jiro wax maa ka jiro cunug maalin kasta su'aal weydiinaya waxa laga yaabaa hal mar inuu hadal ka fogto oo wala ka soo weerara marka insha Allah maxaad kula talinayd Soomaalida joogta halkan Norway waxaan Norway kula talinayaa Soomaalida joogta carruurtooda inay kala baxaan sababta ay tahay wadamo badan ay Soomaalida ku nool yihiin Norway waxaa ku nool 40 kun oo Soomaali Sweden 100 kun oo ku nool Denmark sidoo kale Finland ku nool Yurubta 40 gees oo ku nool carruur laga ma qaato sababaha Soomaalida Norway loogu qaato ilaa hadda waa fahmayaan dad aan waxba galabsan iska degan isku xiran marka waa fahmi way Norwejiga waxa dhibabo nin inaag isqabo ama dad isku xiran waxay jecel yihiin dadka daadsan calanka.com